Filimkan waxa uu ku bilaabanayaa laba saaxiib oo arkaya gaari yaalla geeska wadada. Mid ka mid ah ayaa leh waan soo iibsanayaa, isla markiiba lacagtii ayuu siiyey ninkii iska lahaa. Saaxiibkii kale ayaa la yaabay, wuxuuna weydiiyey gaarigan jaban maxaad u gadanaysaa? Laakiin saaxiibkii waxa uu ku jawaabay waan dayactiri doonaa. Markay yimaadeen gurigooda, ninkii wuxuu eegayaa gaarigiisa cusub, laakiin ciyaalka fowdada ayaa bilaabay inay fowdeeyaan. Wuu xanaaqay, hal feer ayuuna ku dhuftay mid ka mid ah, taasoo keentay inuu isla markiiba dhulka ku dhaco. Dabadeedna waa la kala xeeriyay carruurtii. Habeenkii xigay, ninku wuxuu bilaabay inuu dayactiro gaariga ilaa uu ka daalay, wuu dhex seexday. Habeenkii xigay, isaga iyo saaxiibadiis ayaa gaariga galay. Markii uu muraayadaha fiiriyay, waxba muusan arkin, wuxuuna isku dayay inuu hagaajiyo. Si lama filaan ah, saaxiibadiis ayaa la ciijiyay. Wuxuu isku dayay inuu albaabka furo, laakiin ma uusan furi karin. Markaasna naagta xanuunsanaysa ayaa albaabka furtay, wuxuuna si dhaqso leh ugu kaxeeyay garaashka. Laakiin markaas ayay carruurtii fowdada jebiyeen gaariga. Subaxdii, saaxiibadiis la yimaaday garaashka, laakiin wuxuu arkay gaariga oo burburay. Wuu carooday oo waxa uu ku qayliyay saaxiibadiis. Isla markiiba wuxuu arkay wax la yaab leh, gaariga ayaa si iskiis ah isku dayactiray. Habeenkii xigay, gaarigu wuxuu arkay nin dibadda taagan. Wuu eryay oo wuxuu ka helay meel cidhiidhi ah. Wuu diiday. Mar labaad wuxuu arkay laba lamaane, wuxuuna rabay inuu weeraro. Wuu eryay, wuxuu burburiyay gaarigii ay saarnaayeen, taasoo sababtay qarax weyn. Ugu dambeyntii, ninkii iyo saaxiibadii waxay go'aansadeen inay jebiyaan gaariga oo ay qashinka ku tuuraan. Filimka ayaa halkaas ayuu ku dhammaaday. Fadlan muuqaalka like, subscribe, oo share na dheh. Mahadsanid.